kusoo dhawaada shabakada Kacabidia haddii ay tahay markii kugu horeysay la soo booqatay fadlan daawada subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub asxaabtana waan kaga mahadcelinayaa qaabka ay noo socdaan warbixintan waxaan ku dul istaagi doonaa fanaaniinta Suldaan Seraar iyo sidoo kale saaxiibkiis Xariir Axmed ayaa waxay ku fashilmeen dhaqaale ay ka soo raadsadeen shacabka Muqdisho iyo sidoo kale show la sheegay inay qaban doonaan Suldaan Seraar iyo sidoo kale saaxiibkiis Xariir Axmed oo ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa kuwa dhaqaale u soo doontay shacabka Muqdisho waxayna joogaan magaalada caasimadda ee Muqdisho iyagoo la sheegay inay qaban doonaan show weyn oo magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ku qaban doonaan shacabka Muqdisho ayaa loo soo doontaa dhaqaale iyadoo loo sheegayo in bandhig weyn oo show loo qabanayo waxaana inta badan xilliyada showga lagu qabanayo magaalada caasimadda ee Muqdisho fanaaniinta ay sameeyaan isla markaana labadan fanaan qorshahoodu uu yahay inay sameeyaan in ay heeso playback ay ku soo bandhigaan magaalada Muqdisho iyagoona xitaa aan u haysi karin in live ay u haysaan sida fanaaniinta kale ee waaweyn ee Muqdisho yimaada ee soo bandhiga showga waana tilaabo hadda ay doonayaan Suldaan Seraar iyo sidoo kale saaxiibkiis Xariir Axmed in ay playback ay ku haysaan isla markaana dhaqaale badan ay ka aruursadaan shacabka reer Muqdisho fanaanka Suldaan Seraar iyo sidoo kale Xariir Axmed ayaa Muqdisho u yimid inay ku qabtaan show weyn kaas oo ay sheegeen in dad badan ay ka soo qayb gali doonaan showga waxaa lagu gali doonaa lacag aad u fara badan iyadoo ay sheegeen in showgaasi ay ku soo bandhigi doonaan heese kala duwan labadan fanaan oo ka yimid magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa shaqo tag u ah magaalada caasimadda ee Muqdisho si dhaqaale ay ugu sameeyaan Muqdisho laakiin dad badan oo reer Muqdisho ah isla markaana arrimaha fanka xiiseeya ayaa waxay sheegayaan in gabi ahaanba aysan ka qayb gali doonin showga ay qaban doonaan Suldaan Seraar iyo sidoo kale saaxiibkiis Xariir Axmed maadaama qorshaha Suldaan Seraar iyo sidoo kale Xariir Axmed uu yahay in lacag fara badan ay ka sameeyaan magaalada caasimadda ee Muqdisho marka loo barbardhigo fanaaniinta reer Muqdisho fanaanka Dayaxdal Nuurshe iyo sidoo kale Qadar Kayo bandhigyada ay ka qabtaan Muqdisho waa kuwa qarash yar ku baxa isla markaana xilliyada qaar aan fanaaniinta si free ah ay u qabtaan showga ay ku soo bandhigayaan Muqdisho taasi waxa daliil u ah maalinta ciidda ee la soo dhaafay magaalada caasimadda ee Muqdisho fanaanka Qadar Kayo ayaa ku qabtay bandhig weyn xeebta Liido iyadoona dad badan oo ku damaashaday halkaasi heese kala duwan uu soo bandhigay damaashaadkaas oo si weyn ay ugu heleen shacabka ku dhaqan Muqdisho haddaba fanaaniinta Suldaan Seraar iyo sidoo kale Xariir Axmed ayaa hadda ay u muuqataa in gabi ahaanba ay ku fashilmeen showga ay ku qabanayaan Muqdisho kaasi oo ay ku raadinayaan dhaqaalo ay ka qaataan shacabka Muqdisho bulshada kala qaybinaysa tabalaha ka mariso kabo gobolka banaadir haweenka Soomaaliyeed soo wada beegsada amiin soo wada beegsada amiin